هداد مان يونايتد جعشاي كافر مان يونايتد جعلبات هداد ليفربول جعشاي كافر ليفربول ومقاله مقالهان دب ماله لكن محيته هذا وكوح حبيبتي يا نور هو بس ما وردي 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 kulanti wacan oo wanaagsan aqyaarta wadaan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareey cid walba muuqaalka la gareey subxaan allah subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryeena umuree leedahay ilaahay inuu saala ilaahay subxaanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadonkaana ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee baweyna ha siiyo qof walba oo muuqaalka sheerta ku qabtaa siina la gareey waxa rabbi subxaanahu wa ta'ala aan kaga baryeena maal adduunyo ay safileen inuu ilaahay uu siiya dambigood iyo dambiga waalidkoodana ee bow dhaafaa rabbi سبحانه وتعالى وكو عزوما جنة الفردوس الأعلى حاسدك وحلا نهي ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكودا بين يهوك يقصاره وعربي سبحانه وتعالى لما أنت أنكبر ينا أنت حنوسا إنه إلهي حنونك وقدر القادة أنت مراد كلنا إلهي إنه أموره دو وساله سومالي من ربي جوكتن إنه إلهي قرقار كيسي نسري كيسي وسيو وررك نقصو قارا يدولايت كمقدشو قارا هانديان كعيلاشة بيها يا شيغ ين هالكاسي ما أنت إذا ماذا نبت سجود يصير دون كقرن كصومالية دي نساء كحيرين شيخ عانا oo lagu magacaabo Sheekh Mustafa Ali Caanood kaas oo mudooyinkii ugu dambeeyay maxaadarooyinkiisa la soo gelinayay baraha bulshada isla markaana dad badan ku tilmaamayay inay yihiin gaalo Sheekh Mustafa ayaa khudbadii ugu dambeysay oo shalay masaajidka imaamka uu ka yahay dabaqeynka ee deegaanka ceelasha biyaha uu ka jeediyay salaadii jimcaha wuxuu kaga hadlay Soomaalida taageerta ciyaaraha Champions League ee laga dheelo dalka Ingiriiska ama ciyaaraha kale adduunka laga dheelo wuxuuna ku tilmaamay in kuwaasi ay yihiin kufaar billah kuwa uu la jeedo inay yihiin kuwa gaala ah oo ilaahay ku kufriyay Sheekh Mustafa Ali Caanood ayaa waxa maxaadaradiisa si qoto dheer leh uu kaga hadlay dhalinyarada iyo waliba dadka taageera ciyaaraha gaar ahaan ciyaaraha qurbaha laga dheelo sida kooxaha Yurub ka dhisan iyo waliba ciyaaraha kale adduunka wuxuuna tilmaamay in kuwaasi ay yihiin kuwa aan diinta islaamka haysanin isla markaana ilaahay ku kufriyay sida uu sheegay Sheekh Mustafa Ali Caanood maxaadaradiisana uu kaga hadlay sheekha ayaa sidoo kale dhawaanahan wuxuu si toos ah u gaaleysiyay suufida oo ku tilmaamay inay yihiin mushrikiin ilaahay u sharig yeeshay asoo isla markaasi maxaadarooyin aad u kulkulul ka jeedinaya masaajidka imaamka uu ka yahay ee dabaqeynka halkaas oo sidoo kale cashiro uu ka aqriyo wadaadkan Mustafa Ali Caanood oo dadka qaarkiis ay ku tilmaameen inuu yahay wadaad xaq jir ah isla markaana aad xaq jir u ah sida dadka qaarkiis baraha bulshada isticmaalay ay sheekha ay ku sifeynayeen Sheekh Mustafa Ali Caanood ayaa waxa lagu tilmaamaa inuu yahay wadaad aan afkaartiisa aan qarsan isla markaana meelaha faqaraha ka sheega wuxuu aaminsan yahay walow mudooyinkii ugu dambeeyay si weyn uu gaalaysiinayay dad badan oo kamid ah ummadda muslimka ee Soomaaliyeed kuwaasi oo aragti ahaan ay ku kala duwan xagga mabaadiida wadaadkan Sheekh Mustafa waxaana kuwaasi kamid ah wadaadada suufida oo si weyn ay u kala aragti duwan yihiin Sheekh Mustafa Ali Caanood waxaana wadaadadaas uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa dadka fasahaadinaya isla markaana dhankooda ilaahay u sharig yeelaya waa sida uu khudbada ama maxaadaro uu jeediyay wadaadkan Mustafa Ali Caanood uu ku sheegay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA ciidamo ka socday Israa'iil ka tirsan ayaa aaday maanta masaajidka dabaqeynka ee deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka Muqdisho halkaasina waxay ka gaxaysteen wadaadkan Mustafa Ali Caanood kaas oo la sheegay in xarunta NISA su'aalo badan lagu weydiiyay sida waxa uu ka aaminsan yahay dawladda Soomaaliya wuxuu ka aaminsan yahay wadamada reer galbeedka iyo joogitaanka ciidamada shisheeye ee Soomaaliya joogay iyo arrimo kale waxaana la sheegay in hore sidoo kale Mustafa Ali Caanood door mar dawladihii isbedelayay Soomaaliya ay xireen laakiin la soo daayay waxaana lagu tilmaamaa wadaadka inuu yahay wadaad aftahana isla markaana su'aalaha markii la weydiiyo yaqaan qaabka laga baxsado su'aalaha la weydiinayo Mustafa Ali Caanood ayaa hadda ku xiran xarun ay leedahay nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed NISA taas oo ku taal magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana uu leeyahay taageerayaal badan oo taageera kuwaas oo la dhaxsan qaabka maxaadarooyinka uu jeediyay wadaadkan inkastoo dad badan oo Soomaaliyeedna si weyn ay kaga soo horjeedaan xaq jirnimadiisa ku aadan qaabka dadka muslimiinta uu gaalaysiinayo Mustafa Ali Caanood Mustafa ayaa la sheegay inuu la dhashay taliyihii hore ciidamada xoogga dalka marna ahaa abaanduulaha ciidamada Cabdullaahi Ali Caanood waxaana la sheegay inay isku aabe yihiin waxaana sidaasi qaraabo dhow ay ku yihiin madaxweynaha Soomaaliya hadda talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isku reer hoose ay yihiin wadaadkan maanta la xiray Mustafa Ali Caanood kaas oo dad badan oo Soomaaliyeed ay sheegayaan inuu yahay wadaad aad xaq jir u ah haddaba wuxuu ku soo kordhay arrintan iyo warar sheegaya in wadaadkan lagu jirdilay xarun NISA ee leedahay waxaad kula socon doontaan muuqaalada iyo warbixinada aan soo gudbin doonaa hadduu Allah awood leh u saamaxo haddaad nagu cusubtahay ku soo bir page-keena si aad u heshid macluumaadkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo arrimaha qarsoon